kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada qaybtan waxa ku eegi doonaa ama diiradda ku saari doonaa xogaha xasaasi ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale uu rabo inuu xil ka qaado gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka siday gaashaan la sare xasan cali nuur shuute sidoo kale waxaa xilkii abaanduulaha ciidanka loo magacaabayay cali jeyti cismaan uu diiday kadib markii xalay filla Soomaaliya loogu yeeray cali jeyti cismaan xogahaasi ayaan kula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ila channelka like iyo saartid waa aad u maasan tahay haddii aan ku bilaawno gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan cali jeyti cismaan ayaa lagu soo waramayaa in guud ahaan buu xalay uu diiday in loo magacaabo abaanduulaha ciidanka taas oo cali jeyti uu ku sheegay in uu rabay in loo magacaabo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed balse saami qaybsiga Soomaaliya wax ku qaybsatay nidaamka 4.5 ayaa diidaya in cali jeyti loo magacaabo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed cali jeyti oo xalay kulan xasaasi ah kula qaatay filla Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud kadib markii shalay ay soo baxday in cali jeyti loo magacaabo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taas oo meesha laga saarayo taliyaha ciidamada dhulka ayaa cali jeyti xalay kulan filla Soomaaliya uu kula qaatay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa cali jeyti guud ahaan wuxuu iska diiday in uu qaato abaanduulaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isagoo hadda ah u qaabilsanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya arrimaha maxwiisleyda cali jeyti sidoo kale waxa uu sheegay in uu rajo weyn ka qabay in uu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama isaga xalay uu ku faanay in uu yahay nin dagaalka wax ka yaqaan isla markaana khibrad u leh oo dawaana kaga khibrad badan arrimaha dagaalka balse xogo kale oo aan helinaya sheegaya in cali jeyti lagu qanciyay inuu qaato abaanduulaha ciidanka balse xogo kale oo halkaas ka imaanayaan waxay sheegayaan in cali jeyti isagoo dhulka fiirinaya uu ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya isla markaana u muuqday in aan ku qanacsanay xilka abaanduulaha xoogga dalka Soomaaliyeed cali jeyti weli waxa ka dhex guuxaya rabitaan ah inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maadaama saacadihii la soo dhaafay ay guud ahaan baraha bulshada Soomaalida isla dhex qaadayay in cali jeyti uu qalmo inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taas oo ugu dambeyn xalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud cali jeyti uu ka diiday inuu noqdo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana aysan macquul u ahayn ayna ka dhalan karto cawaaqib xumo nin aanan askari ciidan soo marin isla markaana aan shaqo ku lahayn arrimo ciidan in loo dhiibo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyadoo hadda dadka qaarkood ay sheegayaan in aan guud ahaan bay qalad tahay in abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo magacaabo cali jeyti isla markaana maadaama cali jeyti uu yahay nin ku soo caan baxay arrimaha maxwiisleyda iyo dagaalada maxwiisleydaba haddii aan u wacno dhankan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute ayaa sidoo kale waxay sheegayaan wararka in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu saacadii la soo dhaafay oo go'aan ku gaaray in uu xil ka qaado gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaan la sare xasan cali nuur shuute xilka qaadaysan gudoomiyaha shuute ayaa daba socota dagaalkii al-shabaab dhawaan ay kula wareegeen fariisinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku lahaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilaa hadda maskaxdiisa ay ka dhex guuxayso sida macquulka aan ahayn ay al-shabaab kula wareegeen saacado degmada aadan yabaal oo ahayd fariisin dhan oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda ugu weyn ay ku lahaayeen gobolka Shabeellaha Dhexe shuute oo su'aalo laga weydiiyay sida ay al-shabaab ku qabsadeen halkaas ayaa waxa uu sheegay in asaga in wax laga weydiin ay tahay balse taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo halkaas isaga kula sugnaa ay tahay in laga wareysto sida ay al-shabaab ku dhacdeen halkaas ay ku qabsadaan muran soo kala dhaxgalay saddexda mas'uul ayaa waxa uu ku dhawaaday inuu gacan qaad ka dhaco filla Soomaaliya balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u muuqday nin ay carab badan ka muuqato ayaa labada nin wuxuu ku amray in ay guud ahaanba uga baxaan xafiiska isla markaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isaga go'aan soo gaari doono oo isku shaandhayn ku sameyn doono ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyahooda oo xalay goor dambe qadka taleefanka ku wada xiriiray ayaa waxay go'aan ku gaareen in isku shaandhaynta lagu sameynayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan oo qayb ka noqdo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida maadaama shuute lagu eedeeyay inuu isaga ka soo cararay furmaha hore ee dagaalka sidoo kale shuute hadda waxaa la filayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo saaro saacadaha soo socda halka qaadistiisa iyadoona ninka loo magacaabi doono gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay noo xaqiijiyeen in filla Soomaaliya ka tirsan uu miiska saaran yahay isla markaana gorgortan uusan ka jirin ninka loo magacaabayo balse lama cadeynin shakhsiga loo magacaabi doono gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida balse qodobada dhanka ammaanka wax ka yaqaan arrimaha dagaalka oo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada wax ku qorayay ayaa sheegayay in guud ahaan ay qalad ahayd in furimaha hore dagaalka loo diray gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana ay halis tahay in haddii labadan midkooda uu dagaalka ku dhinto in dalka lagu soo rogo cunaqabateed dhan walba ah sida ay sheegayaan ilahan dhanka qobarada ammaanka ah waxna ka yaqaan arrimaha dagaalka sidoo kale hadda waxa la filayaa in uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud magacaabistan uu ku dhawaaqo si kastaba hadda waxa la filayaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu soo saaro magacaabista gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida isla markaana uu amar ku siiyo in sida ugu dhaqsiyaha badan in guud ahaanba amniga goobaha al-shabaab ay la wareegeen wax ka bedel lagu sameeyo isla markaana ay muhiim tahay muqaddasna tahay in dowladda federaalka ciidamadeeda ay la wareegaan guud ahaanba goobaha al-shabaab ay dib ugu soo laabteen
sababtoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sacdiil soo dhaaf waxaa soo gaarayay fariimo kaga imaanaya degmada aadan yabaal kadib markii kooxda al-shabaab halkaas ay la wareegtay ay bilowday in ay dadka kusoo rogto cunaqabateen dhan walba iyagoona xoolahooda iyo wiilashoodaba xoog kaga qaadanaya. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintaasi ka jiifan waayay ayaa sheegay in guud ahaanba wax ka bedel lagu sameeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan meelaha la qabanayo ay koob ka noqoto degmada aadan yabaal oo gacanta dowladda lagu soo celiyay sida ugu dhaqsiyaha badan. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalmaha la socda waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo guud ahaan wejiga saddexaad ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab ee lagu xoreynayo dalka. si kastaba hadda kooxda al-shabaab waxaa kaga furan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan dagaal culus oo kooxda lagula jiro. dowladda federaalk ayaana rabto in al-shabaab mar kaleeta ay dib u wajahdo ayna wiiqdo kana saarto deegaanada iyo degmooyinka ay kaga harsiiyeen gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan. waxaana saacadaha soo socda madaxweyne xasan sheekh maxamuud la filaya isbedelka uu ku sameynayo ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan in ay waxweyn ka bedelaan dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab. raggan hadda la soo celinayo qaarkood waa rag hore ugu soo qabtay ciidamada xilal kala duwan isla markaana hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar kale uu go'aansaday in raggan ay yihiin kuwo u qalma xilalkoodii isla markaana lagu soo celiyay boosaskoodii hore. guud ahaan hadda waxaa la filayaa in amaradaas iyo magacaabashadaas dagaalka al-shabaab ay wax ka bedelaan waxaana sidoo kale la filayaa in maalmaha soo socda al-shabaab dagaal culus lagu qaado iyadoo la rajeynayo in dagaalka al-shabaab markaan uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee lala gala isla markaana looga saari doono guud ahaanba dalka. sidoo kale saraakiil xoog ogaal oo ka tirsan villa Soomaaliya isla markaana ku dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxay inoo sheegeen in markaan ay tahay markii ugu dambeysay dagaal al-shabaab lala gala isla markaana dagaalka al-shabaab mar hadduu bilaawdo uusan joogsan doonin uu ku socon doono dardar sida inoo xaqiijin ila xoog ogaal oo ka tirsan villa Soomaaliya isla markaana ku dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud. si kastaba hadda waxaa la filayaa in waxweyn ay ka bedelaan saraakiishan lasoo magacaabayo iyo isbedeladan lagu sameynayo. ugu dambeynna Cali Jayte waxaa la filayaa inuu ku qanco magacaabistan abaanduulaha ciidanka bacdama isaga madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u ogolaaday amisana uu ku qancay in abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cali Jayte Ismaan laga dhigo. wixii warar ka soo kordha adiga ayaa ugu horeyn doona. waxaan ka codsanayaa haddii ay tahay markii ugu horreysay ay soo booqato inaad subscribe idhaada channelka laakiin ii saaritid si aan u helno saaxiibo badan oo adiga ah.